الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلتي وعلى وناكسن هرتيد عاشق قوف كستا iyo goor kasta joogtaan waa barnaamijkeeni iftiiminta oo aynu maanta isku dul taagayno loolankii iyo tartankii iyo baratankii adkaa ee ka socday magaalada Minneapolis oo geesaha inta la iska garaacay la isu awood sheegtay la isbajaqiyay oo la isbartay baynu isdul taaganay xaaladdu hadda halka ay marayso eegay koox yar oo iimaan laawayaal ah oo been iyo propaganda media soo galiyay iyadana waa ka daba tageynaa barnaamijka dug soo gaarsiin sharkay hadii salaad ku joogtan u soo tuko hadii kale nabi ku salli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waayahay wuxuu yiri warwaadigu ogaayo amaanada hadalkeeda hadii agoon leedahay aan iska keenan lahaa waa idinkii ogaayo tartan baa socday inkii chaka fray loo rajiray ee iimaan laawaha ahaa ee Soomaalida damca inuu qabiyaalaad ku kala gooyo oo in yar oo liidata on aqli iyo garasho iyo dadnimo midna aan lahayn eegay iyo qaar xanuunsanaya oo dhimirka ah oo ugu horeeyo koran dhakhlihi ilkaasi koran dhakhla u bixi awrka maartan awrka koranka dadka miyiga jooga baa garanay doob male ma doobiyo ilan qoor ma ahay waa dhufaan eegi waa guuxa hirgo marka la yiraahdo buda doob baan jirin ilan qoor ma aha doobi ma jirtay koran dhakhla u bixi koran dhakhlihi iyo yarkii ka xanaaqsanaa ilhaan Umar ninkii qabi jiray diyuuska ahaa barigi hore soo horbooday intuu soo gabadhiisu horbooday oo gaalo hor cararay oo yiri adigu tartan oo naagtiis iska horeysiyay waa hadeer cadaysan yahay oo nacdaana wata waligay nin hinaasa anigu waa arki jiray eegi ninku markuu hinaaso oo ay gabadha kala tagaan naakalu doona jiray nin wata eegi nin wata nin cadaana buu wata uu leeyahay qabiyaalad baan wata daarood baan wata Allah iyo wax daarood iyo hawiye la yiraahdo Mareykanka ka jira ma jiray cid ugu badan hawiye horboodiyaba Umar Faatax hawiye waxa weeysa horboodiyo gacanta haysta oo le hore u socod Soomaalidii Mareykanka joogtay inta yar ee caada qaatayaasha iyo koran dhakhlaha mooyaane Soomaalidii inta kale Umar Faatax ay caasha saartay waxa la yiri nin walow nafta nabiga umada gacan baa la saaray ninkii cadaanka ahaa lama arag iyo lama maqal iyo laga ma sheekeeyaan baa ka dhacday Mareykankii waxa inta sii dheer horta tartanka meesha ka socda waxa la rabaa qofku inuu keeno 51 konton xitaa maaha 50 maaha waa 51 inaad keentid oo aad hal dheeri ku qaadatid wareegii koobaad waxa lagu kala baxay 32 iyo 40 koob iyo 40 iyo koob iyo 30 baa lagu kala baxay wareegii labaad baa hadda loo gudbay wareegii labaad waliba Umar Faatax waxa wata Soomaalida marka laga yimaado cadaankii Mareykanka waxaad ogtihiin in laga daalay in la isku dul noolaado niman cadaan ah oo Mareykana inta Mareykanka ay qabsadeen inay iska shaqeeyeen wad ogtihiin magaaladii ugu weyneyd ee ganacsiga ee New York nin muslima oo waxa weeye Hindi ah iyo Pakistan ma qaxay kulay way Asian ayaa la wareegay oo ku guuleystay oo Trump intuu u qaatay 10 daqiiqo ah buu naasaha ka garaacay Umar Faatax maanta waxa wata gudoomiyaha gobolka xitaa Mansoura Umar Faatax buu la safay ciyaarta dhinaca kale isu rogtay shaarubaha dhulka loogu xiiray 8 sano buu haystay ninkaasi amni darrada magaalada Minneapolis ka dhacda dhibaatada ummadda Soomaaliyeed 8 sano ee ninkaasi waxa weeye Minneapolis uu ahaa duqa magaalada ka ahaa dhibaatada ummadda Soomaaliyeed gaadhay waligeed ma gaadhin waxba ha arkin afartan islaamood iyo koran dhaqlaha kan afqalooc eegay iyo ninkan hinaasay waxa weeye ninka cadaanka ah wata waxba ha arkina laakiin ummadii Soomaaliyeed saacadan aan ila hadlayo dadkii Soomaaliyeed ee gobolka Mansoura magaalada Minneapolis ku noolaa gacmaha isqabsadeen iska daa wax kale cadaankii baa Umar Faatax la socda cadaankii ayaa la socda saacadaha soo socdana guushii oo gacanteena ku jirta iyo dabaaldeg waxa inta sii dheer cadaankii waxay saadaalinayaan wayaabayn waxay leeyihiin ninkan Umar Faatax ku ekaan maayo Minneapolis iyo Mansoura ninkani waa madaxweynaha mustaqbalka dalka Mareykanka kulay barti Obama galay ayuu ninkani galaya qolada khibrada ah ee Mareykanka ay wax ablaysa ay siyaasadda rogtay wax saadaalisa ayaanu ka soo xignay warkan oo sheegayo TV-da la fadhiya eegay chaka fray ninka la yiraahdana tuug نهاب أو إلهي كفرتي أو ضلك يدك بابيي خاصة أمة الصومالية دقيقة كدقيقة نكاسة الضبط يلا بقى تنقف
oo madax ah ayuu u magacaabay Minneapolis 8 sano uu joogay hal qof oo Soomaaliya kaga madarin hal qof oo Soomaaliya kaga madarin ninkaasi wax kale iska daayay shaqada ugu badan ee ummadda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ka shaqeystaan oo waliba dhalinyaradu ka shaqeysto Uberka u badan barnaamijkii Uberka ninka albaabada u laabay ee ciyaalka caanahoodii diiday ee waxa weeye hagbadi islaamuhu gali jireen halka qabtay oo dhalinyaradu yiri Uber wax liyaado oo shaqeynaya haba yaraatay ma jirto chaka freebuha waa kiisaska u yaala way Umar Faataxna kiis kasta oo la soo rog waxyaalaha cadaanku maaha Soomaalidu kale dadka qiirooda maaha qabyaalad kuma shaqeeyaan eegay kana reer hebel ma yaqaan qofkani muxuu qabtay haat burhaaniq qof waliba wuxuu qabtay eegay waxa aad shaqeysatay baa lagu siinaya kiiski sida bogiisa loo soo rogaba ninka positive ugu qoran Umar Faatax wax allaale iyo wixii kor loo qaado ninkaasi wanaag waxaan ahayn eegay oo bogiisa ku qoran xaashi kasto la soo rogo ilan gaaladu iyo dadkan cadaanka ay horumaray waxa sameeyeen qofka backgroundkiisa la eega ninkan asalkiisa wuxuu soo qabtay meeshuu ka soo bilaabay nooca uu ahaa buu kasta iyo baal kasta oo la rogo oo backgroundka Umar Faatax ah positive ku qoran wanaag waxaan ahayn lama hayo horumar eegay iyo inuu shacabkiisa iyo dadkiisa wax u qabto tan labaad ninkan waa senator dhaqaale uma baahna shaqo uma baahna wuxuu Minneapolis ugu ordayay Minneapolis waa magaalada Soomaalida ugu tirada badan dalka Mareykanka ay ku nooshahay baladeegi Umar Faatax marka muxuu ordaya Umar Faatax wuxuu rabaa in uu dadkiisa Soomaaliyeed ee Minneapolis ku nool inuu wax u qabto aygu dhaansaday ee cadowga ah albaab walba ummadda Soomaaliyeed waa ka soo xiray inta qof uu magacaabay malaa tari horena 7 qof uu magacaabay taraan haddana 30 qof buu magacaabay hal qof oo Soomaaliya oo madax ka ah Minneapolis dawladda hoose Minneapolis ma jirto guriga ummadda Minneapolis uu fadhiyo dawladda hoose hal qof oo Soomaaliya oo madax ka ah ma jiro bal qiimay oo bal dib u eegay Umar Faatax oo maanta duqa magaalada Minneapolis ah intee dhibaato buu ka difaaci karaa ninaad afgaranaysid war islaamaha la yaqra wala yaktubka iyo odayaasha waxna qorin waxna akhrin eegi aan luqada aqoon ba albaabku garaacayo rimaando sidaas aan rabnaa laakiin chaka faray oo 8 sano haystay eegi oo waxa weeye deegaankii iyo dadkiiba baabiyay in maanta la yiraahdo waa dooranayna war cadaankii baa diiday gudoomiyihii gobolka ka soo horjeeda baladeegi waadna ogaan doontaan saacadaha soo socda guul ummadda Soomaaliyeed ku faraxdo kuwii waxa weeye ka codeeyay iyo intii waxa weeye daba ordaysay intii gaalka daba socotay iyo koran dhakhle oo 3,000 qaatay 3,000 waa ninka doofaar isugu maamahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un qofka doon af Soomaaliga aqoon eegay dhibkaas ay leedahay af Soomaaliga koran dhakhle ilka case waa koran dhakhle eegay koranka maartay awrka koranka ah waa guuxa laakiin ma doobiyo waa koran dhakhle waxaan rabaa qodobkayga labaad inaan isku dultaago jabhadda xaquudirirka ururka dhaqdhaqaaqa wadaniga dib u xoreynta Soomaali galbeed ONLF ayaan fariin idinka wadaa ummadii Soomaaliyeed anu waxaan ahay afhayeenka ururka dhaqdhaqaaqa wadaniga dib u xoreynta Soomaali galbeed afhayeenkeedu waa aniga ONLF haddaad maqashaan eegay afhayeenkeedu waa aniga dib markaan ugu noqonay hadalkii ka soo yeeray koron dhakhle eegay oo uu lahaa calankaasaan anigu hay calanka ONLF baan hay anigu calankaasaan hay af ONLF ninkaas kuma hadli karo af ONLF ah oo koron dhakhle ilka case uu ku hadli karaa ma jirto kuma hadli karo mana ceebayn karo mana gafi karo bursh xaarlana ma marin karo ONLF waa ururka dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaali dib u xoreynta Soomaali galbeed waa urur sharaf leh oo u dagaalamay intaasoo sano u soo dagaalamay muddo 40 sano wax u dagaalamayeen sidii ummadda Soomaaliyeed Soomaali galbeed ku nool ay waxa weeye u xoroobi lahayd cadawga Itoobiyaanka uga xoroobay dhiig iyo dhacaan bay ku bixiyeen ummadda Soomaaliyeed sida madaxoodu kor ugu taagi lahayd sida darteed ma aqbalayno mana yeelayno dulli Ilaahay ka furtay oo sarjooga ku kaasa oo alcoholic ah oo doqon ah oo waxa weeye af Soomaaliga aan aqoon oo afkiisu iyo dhagihiisu aan ismaqlayn in uu waxa weeye bursh xaar la mariyo waxaanu qaadan karnaa ma ummadda Soomaaliyeed waa ka raali gelinaya anigu waxaan ahay afhayeenka ONLF afkooda anaa ku hadlaya anaa idinka raali gelinaya wax la yiraahdo ONLF oo soo wakiilatay koron dhakhle ilka case ma jirto reerka ogaadeen la yiraahdo oo burshka xaarka marinayna aniga ka xaalsiiyay
ogaadeen lama socdaan lama qabaan tuug ilaahay ka furtay bay u yaqaanaan alcoholic bay u yaqaanaan qof dhintay bay u yaqaanaan dulli baa loo yaqaanaa la kordhigay oo la hoos dhigay ummadda Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay on elefna ninka afkooda kuma hadlayo on elef waa urur u dagaalama oo u dhaqdhaqaaqa dib u xoreynta ummadda Soomaaliyeed ee deegaanada Soomaali galbeed ku nool cid kastaana ku jirta eegay magacaas sharafta iyo karaamada leh iyo ururkaas intaas oo sano waxa weeye u soo dagaalamay dalka iyo deegaanka in bursh xaarna la mariyo cidna ka aqbali mayno koran dhaqlan kuma hadli karo bal iska day af ogaadeen baan ku hadli karin $3,000 buu qaatay $3,000 ayaa chaka faraysiiyay eegay iyo wiilkii hore ee Ilhaan Cumar gurigeeda ka soo cararay ayaa $3,000 siiyay eegay wax qabyaalad la yiraahdo oo meesha ka jira ma jiraan hawiyaan la caay karin isaaq baan la caay karin raxaweyn mid baan arkay liibaan la yiraahdo raxaweyn afkooda ku hadlay raxaweyn waa dad sharaf leh oo dad Soomaaliyeed Soomaalinimada cid kaga horeysa raxaweyn ma jirto raxaweyn Umar Faatax bay u codaysay hawiya u codayay baladeegi isaaq baa u codib iyo daarood cid waliba waxay maanta wadataa Umar Faatax guushiina waa inoo soo dhuuday waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan ka codsado 40 ma gudbe ee duqmaha ee bila aqliga ah ee liita yaan ummadda Soomaaliyeed iyo qabaa'ilada Soomaaliyeed loo cajarafayn baladeegi hawiya tunkay ku sitaan Umar Faatax kuwooda maqaawirtoodii kuwooda ugu weynaa ugu aftahansanaa eegi ayaa waxa weeye tunka ku sita ninkan dhalinyarada ah waxa weeye mascad la yiraahdo waa nin hawiya halka tunka ku sita odayaashii baa wata islaamihii baa wata dhalinyaradii baa wata maanta waxa weeye looma kala harin ninkii ka hadhaa heybta kuma jira ka dhacday guushiina way noo soo dhowdahay wareeg labaad baa la galay biidnillaahi tacaala waa guuleysanayna duqa magaalada Minneapolis waa Umar Faatax baladeegi 5 sano ee soo socota hadii ilaahay idmana Trump ninkii bedeli lahaa waa Umar Faatax ummadda Soomaaliyeed hab bishaaraysato waa guuleysanay wareeg labaad baa la galay dadkii iyaga ka hooseeyay codadkoodii baa la isku darayaa waxayna u badan tahay marka la ablaabliyay oo la rogay oo dhan kasta laga istaagay oo dhan walba la eegay cadaankii oo dhan waxa ay wataan Umar Faatax sida New York ninkii Asiaanka ee Muslimka ugu soo baxay ayaa waa challenge way baladeegay chaka fure waa la nacay chaka waa la nacay ummadii Soomaaliyeed baa nacday cadaankii baa nacay Mooriyaan tuug ah oo Ilaahay ka furtay oo nahaaba way baladeegay dadkii oo dhan baa nacay sida darteed go'aan waxa la qaatay ilaa gudoomiyihii gobolka cadaankii dadkii migrasa Mexicaanki dad tira badan baa degan Asiaanka inaga badan Mexicaanka inaga badan cadaanka inaga badan boqolkiiba 2 aynu ka nahay gobolka dhan ee Minnesota boqolkiiba 2 way ummadda Soomaaliyeed cadaankii iyo Asiaanki cid wali waxay wataa Umar guushiina waa soo dhowdahay saacada inaga xiga guuleysta koran dhakhla waxaan leeyahay afka oo elef kuma hadli kartid oo afka ogaadeen kuma hadli kartid tuug Ilaahay ka furtay oo dhareerku ka daadanayo oo doqona baa taaninkii doofaarka suuq af Soomaaliga ma taqaanid oo af Soomaaliga ka arradanta suugaanna ma lihid heesana ma lihid ruunay ruux iyo futada ruux iyo hebel baan hay qabyaalada iyo qurunka ummadda Soomaaliyeed adiga baray hada maanta qabyaalad ka hadlay doofaarka ficilaan baa loo cadaabaa buu yiri nin gaal uu hor dhinac taagay qofka noocaas ah ninka kuma maahay doofaarka ficilaan baa loo cadaabaa shanta Soomaaliyeed baa ina deeqdo shanta Soomaaliyeed baa ina deeqda shantee Soomaaliyeed Soomaali baa ninka cadaanka af Soomaaliga ka arradanta oo aqliga ka arradanta Yurubna anaa ku ballan qaaday 2017 meeshii aan ku geeyay hadaan ku geen waayo marada aan ku jiro nin kuma jiro Scandinavian-kana waa kaaga dhamaatay German-na waa kaaga dhamaatay Ingiriiskana waa kaaga dhamaatay Holland iyo Belgium-na way kaaga dhamaatay Yurub horta kuma soo talagelaysid Mareykanka aad joogtidna albaabada loo soo laabay hadaan afku ku dheeraan oo 3,000 aadan eedin eegay marada aan ku jiro nin kuma jiro waan ku koran dhakhlo bila aqli anka soo leeyahay qalka on elef ana afhayeenkeediya kuma hadli karo xaal baanu ka bixinay hadaan nahay ururka dhaqdhaqaaqa wadaniga dib u xoreynta Soomaali galbeed hadaan nahay on elef anigu afhayeenkeediya xaal baanu arinta ka bixinayna afkayga kuma hadli karo ogaadeenna ana afkooda ku hadlaya lama qabaan eegay ogaadeen baan la qabin on elef baan la qabin kugu koobaaban oo kuma soo dhaafto af qushaashle doqonkiyo eegay kugu koobaaban kuma soo dhaafto laba xiliyood baad iga noo balana wada hadal buu yahaadkaas ka haray kushi waa soo dhowdahay waa guuleysanay
dhowr saac baa inoo haray barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleen Minneapolis gacantaynu ku haynaa eegay waa guulaysanay barnaamijka dug soo gaarsiin sheer garay warsan iyo nabadiino salaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh